dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saakay xukun dil toogasho ku filisay 2 nin oo lagu helay in ay horey dilal ugu geysteen deegaanada maamulkaasi. Labada nin oo xukunka dilka ah ay horey ugu riday maxkamadda gobolka Baay iyadoo oo ugu dambeyn saakay lagu fuliyay toogashada oo ka dhacday fagaara ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Ragga la toogtay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Aadan Cali Cabdi iyo Maxamed Geedow Nuurow kuwaas oo maxkamadayntoodu ay soo martay heerar kala duwan. Aadan Cali Cabdi ayaa lagu helay dilka marxuum Macalin Daahir Cabdillaahi Mukhtaar sida ay sheegtay maxkamadda gobolka Baay. Maxamed Geedow Nuurow ayaa isaguna lagu soo eedeeyay dilka marxuum Jamaal Cabdikariin Maadey oo ugu dambeyn lagu helay. Fagaaraha lagu toogtay labada nin ayaa waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed iyo dadweyne la isugu yeeray halkaasi si ay goobjoog ugu noqdaan toogashada. Sidoo kale waxaa fulinta xukunka dilka ah soo dhaweeyay ehelada marxuumiinta ay horey u dileen raggan saakay la toogtay waxayna ugu mahadceliyeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa horey sidan oo kale tiirka u geysay ragga dilal ka geystay magaalada Baydhabo iyo kuwo kale oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.